قلت لك كان أنا على كو قبنا يا أنت يا أرد شاهي سكري الله أتكاتي هدي أتكاتي مركا يا شاهي سكري أنا أنت يا كو قبنا يا markaas hooyada waxay leedahay ka kac meesha orod shaah noo soo kari waxaana intaa noo haysataa bilaayada meel laga keenayna aan la garanay oh my god cabdiqaadir waan soo baxay kijadaan tegey waan ku noqday waxaan sir waxaad soo weydiisaa sonkortiyo dhammaatay hooyo lacag cabdiqaadir waxaan u galay inantii yarayd oo ay saa sanka iyo afka u hayaan laa xawla walaa oo quwata lugaha ka firigfirigsiinaysa ilaahay idinma naxariisto waan soo orday hooyo ilmaheedii la dilayo caloosha xanuunaysa waan soo orday soo dub istaagay saasay ii kala tuureen markaa cabdiqaadir tayar indhaheedu markaa saasay iila raacaysay indhaha markii naftu kasii baxaysa inaa lilah adkaatay markay hubsadeen inay inanteeda dhimatay ayay halkaas oo kala dhigeen anigu markaa inanteed waan soo qaatay waxaan u haystaa inay nooshahay anoo haddaanan arki lahayn oon horteeda lagu dili lahayn oo lagu heedi firig lahaa gacantireeda dhaqdhaqaajinaysay indhaheedu wixii aanan arki lahayn saameyn iguma yeelatee cabdiqaadir waxaa noqday sidii qof khaafay oo kale isku dhex yaacay oo kale ilmahaygii inantaydii yarayd magacii aan u bixiyey sida 2 wiig oo qof aan adduunka loo daynin bay ahayd bucbuc u noqotay qof yar qurux badan u noqotay qofkii markaa soo gala waxaan ku idhaahdaa inantaydii yarayd habreer heblaayaa dishay inantaydii yarayd habreer heblaayaa dishay inantaydii yarayd deetana waxaa la sameeyey in magaaladii layga masaafuriyo oh my god ilaahay dhammaantiin baydi kuma keeno wallaahi waxa waaye waa xanuun wallaahi ilaahaydi kuma keeno habliyo acuudu billah islaan walaasheed ah ayaa lay diray oo magaalo kale joogta islaanta wiilal waaweyn bay leedahay cabdiqaadir waa anigan qof khaafsan ah wiilashii waan la sheekaysanayaa ilmahayga yarayd habreer heblaayaa dishay lugaha saasay lahayd indhaha saasay iisii eegeysay markaas waxa lagu dhahdaa ama afka isku daro waxaad samaysaa waxaan soo qabo inamadii ma hoos fadhiya ma uga sheekanaya ilmahaygii mid baa damac iga galay damac oo is yiri markii horeba da sheekadan way taqaano ilmahay rooti meelaha ka keentay adiguna ka baxalkayso laa xawla walaa quwata illaa billah dadkeena baahidiisa kaga faa'iidaystaan xitaa qofkaas dhibaatadaas gaadhay qof dareemaya kuma jiro bal ka warama baahidiidu rabaa inuu kaga faa'iidaysto alaama kugu dhacda cabdiqaadir markaa aan khafiifa laakiin iminka caqli baan yeeshay waan garanayaa waxaan noloshan noocana in noloshan ilmaha lagu dhalo in waxaanay xaaraan tahay inay khalad tahay waxaan oo dhan waan fahansanahay markaan arkay habrwadaageenu soo gacmo dhaadheer yahay ayaan maalin iska baxay maalin baan iska baxay hortaa bannaan baan u socdaa markaan soconaya xitaa waan isla sheekaysanay saan u joogo aan caadi ahaynba ilmihi yaraa igu soo dhacsan markaan isla sheekaysanaya socday markaan magaaladii ka baxay oo aan magaalada gooniheeda joogo ayaa waxaan arkay gaari meel taagan oo gaari weyn oo baxayo oo magaalada gooniheeda shidaal kaga shubanaya gaarigii unbaan xagga dambe ka fuulay gaarigii baan iska dhex fadhiistay meelu ku socdo iyo meelu tegayo toona garan maayo islaamaa saarnaa iyo dumaro iyobaa saarnaayo lama hadlayo cabaar markaan meeshii la fadhiyo gaarigii cabaar socday rikaabku way wada sheekaysanayaan dadku wada sheekaysanayaan jaanta iyo jiibta isla hayaan ayay isaan igu tiri xagaad ku socotaa dadku way degayaan oo marba kaan baa cunto laga cunaya meelaha cuntada laga cuno gaarigu ku nasto oo anigu lacagna ma haysto dhar ma wato inta aan xidhanahay uunbaan wataa dadkii baan saa u eegayaa mar ilmahayga baa igu soo dhacaysa mar rafaadkii reerkaygu soo mariyay odaygii baasaa inkaarta qabay gurigan hadda aan ka waxbaasaa iigu wada sawira dadkabana ninba hadduu agteeda soo fadhiisto sas baan ka qaba
sasbaan ka qabaa ragga walaa xisasna laga qaado waa nahay wallah marka sheekooyinka dhegeysato calool xanuunka haye cabdiqaadir waxaa dhacday islaam baa igu tiri xagaad ku socotaa markaasaan ku yidhi ma garanayo xagaad ka timi halkaasaan ka imi maxaad xaafadiina uga timi ilmahay gereed bay iga dileen saasay ku sameeyeen habarartii baa qabatay sanka iyo afka saasay ahayd inanteeda xiblaa la odhan jiray inanteeda aabaheed me adeerkay buu ahaa sheekadii wixii qof waxaa noqday aan waxba qarin karayno qof kastay aragto la sheekaysanaysa laa xawla walaa quwata illaa billah islaantii way ilmaysay markaa way aragtaa inaan ilmo yarahay oo aad u da-yarahay dhibaato culus oo baaxad la iigu soo dhacday islaantii baan raacay islaantii baa igu tiri anaad raacaysa hey guys hal mar shaashada inoo garaaca waynu dhegdhegaysaa ayna tuurin faadmane sheekadu xagga dambe laakiin ka macaanaanaysaa ku soco hadda waa calool xanuun islaantu markaa cabdiqaadir waxay u socotaa xeryaha qaxoontiga islaantii baan raacay islaantii bay soo dhaweysatay islaantii halkaas ka jiibsay igu tiraahdaa hooyo naso halkaa ii jiibso xeryihii qaxoontiga ila tagtay iyadu kaadh bay lahayd qoladii UNT ii geysay dhibaatada igu dhacday bay sheegtay keligay halkaas ka soconayay inaan gaari soo raacay dadkayga dhibaatada ii geysteen kaadh baa lay sameeyey maalin kasta waa lay yeedhi jiray waa lay wareysan jiray sidii un baan ugu warrami jiray maalin kasta sidii un baan ugu warrami jiray cabdiqaadir waxoogaa markaan meeshii joogo ayaa fiisa maraykan ii soo dhacay reer Ameerika soo dhaweeya alxamdulilah hal mar baan ka faa'iideysanayaa faadimo marka ay sheekaynayso way ku nafisaysaa ogaada waa sababta qolkan aan u furnay waxaa ka mid a maadaama Soomaalidu aanay terabiil lahayn meel hablaha la dhibaateeyey ama wiilasha dhibaatada soo maray lagu wareysto oo ay ku nafisaan maadaama aan lahayn horta siyaasadda platformkan ama meesha aan u samaynay marka inaad sheekaysaan isku daya haddii kale dhibaatadii kugu dhacday gudahaagay ay ku jiraysaa kadib waxaa ka qaadaysaa macaan dhiikar depression xanuuno fara badan baa laga qaadaa isku daya inaad dadka la sheekaysataan ku soco aada weyn cabdiqaadir oo maraykan baan tegey maraykan haddaan tegoon xoogaa joogay oo aan markaa iskuul leegeeyo iskuulkii luqada yar dhigtay oo guri yar laysiiyo shaqo yar bilaabay oo xamaaliya oon shaqadii reed ka shaqaysto ayaa waxaan go-aansaday inaan liisanka gaariga barto liisankii gaarigaan bartay liisankii gaariga markaan bartay oon gaari yar soo iibsaday oo aan gaarigii wado oo xoogaa meeshii joogo markaa gaariga saan u wado cabdiqaadir oo ayay maskaxdeedu dhaqaaqaysaa waxa ii hor imanaysaa inantaydii yareyd qaabkii loo dilayay qaabkii wax u dhaceen qaabkii ka horreysay inantayda aan adeerkaysu wixii baa igu soo xaadiraya deetana markaasaan gaarigii waan wadayaa uun ma ogi xagan gaariga ku wadaa stop baan soo dhaafay maxaa khaldan waxaasoo dhan ma garano cabdiqaadir waxoogaa markaan meesha joogay ma garto cabdiqaadir oo u tag dhakhaatiirtan lala sheekaysto u tag haddii xitaa laysoo ballamayo ma aaminsani oo wax weyn oo buuran ilama ah inaan qof maanta dhakhtar ag fadhiisto u tago waxay iga sii muhiimsan inaan shaqeeyo gaarigayga ka haysto gurigayga joogo xaafadeydii weli lamaan hadlin markaa maalintii dambe cabdiqaadir hadday adkaanaysaa haddana faaduma intaan wax ka adag lagu dhufeeyey thank you fos aad baa u mahadsanta subscribe-ka aad dib noogu saartay markii horena subscribe bayna taasi noo ahayd dad badan oo ka dhacay baa jira guys subscribe-ka noo saara aad u mahadsantiin ku soco yuu noqon doonaa caawa qofka khaaska ah ee 500 xidhi doona 500 hal qof baa ka dhiman qofkii xidha magaciisa samuurada kasoo buuxiya ku soco caawa qofka khaas buu noqon doonaa cabdiqaadir oo hadday adkaanaysaaye waxaa dhacday gaarigii baa anigoo wada baan sheekadii xasuustay deetana shil baan galay gaari baan galay gaari weyn ayuu gaarigaygii hoos galay gaarigii markuu hoos galay cabdiqaadir oo dhakhtarka anoo aalo baan anigu soo miirsaday inaa lillahi anigoo dhakhtarka aala baan soo miirsaday dhakhtarkii markaan xoogaa ku jiray oo dhaawacyo badani soo gaadheen oon gacan ka jabay oon feedhaha ka jabay oo madaxa laf ku jirtaa i jabtay inta markaa aan ogahay wow thank you yaa xidhay
ما أركين بقى. maan arkayn anigu wax thank you laba qof baa saaray subscribe labada qof ee cusub way ee saaray qofkaasaa laga dhacay qofkaasaa ifraax 2 bilood ah waxaan u maleynayaa iyo qadiijo uu ii sheega kulay iyo foos iyo amal iyo xamda iyo ansi iyo naciima iyo jiyo waa ifraax inta weeyaan caawa saartay ifraax thank you waa aba hadda soo tuura haye ifraax waa 2 bilood saartay thank you ifraax samuurada ka dhiga ifraax thank you cabdiqaadir oo intaan ogahay dhaawac ah ayaa intaas markaa waxa dhacday markaa waa lay daweeyey subax kasta waa la yimaadaa gogoshaa wax kasta laygu keenaa gogoshaa wax kasta laygaga qaadaa kaadida gogoshaa laygaga qaadaa halkaa kama kaco sariirtaas markaa gacantan jaban madaxoo lafiga jaban tahay feedhaha dhaawacyo kaloo igu yaala ilkaho bariga daateen waxaasun baan anagu markaa ogahay xalaakin kasii dambeeyaanan ogey balka waran adoo kaadida lagaa qaadayo oon awoodin ilaahu caafimaadka waa ku mahad ilaahu inta caafine xanuunsanaysana ilaahay caafi deeqa thank you for your subscribe hayo cabdiqaadirow markaan muddo bila meeshii jiifo ayaan ku uri aniga waxaan rabaa inaan kaco isoo kiciyo ifadhiisiya haye dhakhaatiirtii markaa way wada hadleen way iga baxeen way soo noqdeen waxa laygu yiri turjumaan baa lagugu yeedhaya dhaawacyadaada laguu sharaxayaa cabdiqaadir turjumaan baa lay ballamiyey turjumaankii baa lay keenay waxaa laygu yiri iminka dhakhtarka bil baad ku jirtaa gaari shil baad gashay soo ma ogid inaad shil gashay haa shilkaasaad gashay wax kastana way dhacaan isteji caafimaadkaaga inaadan nixin inaad fadhiisato caagad yaro biyaa lay dhiibay haddaad wax dareento biyaha yar cab neef qaado waxaan rabnaa inaan kuu sharaxno dhaawacyadii shilka kaa soo gaaray inaa lilah maxaa loo sheegaya ba idinla tahay bal soo qora haye cabdilqaadirow waa lay sharaxay waxaa laygu yiri madaxa lafaa kaa jabtay gacantan waad ka jabtay intaasoo ilig baa kaa daadatay halkaa wejiga nabar jeexaa kaa gaadhay feedhaha qayb baad ka jabtay halkan misigta waad ka jabtay halkan kale waad ka jabtay lugtaa hoose waxbaa kaa gaadhay lafta dheer ee dhabarkaad ka jabtay taasaa ugu muhiimsan mana socon doontid inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun subxaan allah faadimo cali thank you walaalo for your subscribe samuurada sorry ka dhiga ilaahay shilna idinkuma keeno caafimaadkana idinkama qaado subxaan allah haye cabdiqaadirow waxaan ay sheegaysay oo dhan waxay igaga naxdin badnaa markaa laftaa dheer ee jabtay oo iminka dib uma kici doono may waa laga yaabaa inaad kacdo waa laga yaabaa inaad fisiotherabiya tegayso halkanaad tegayso waa macquul 80% waxaa macquula inaadan kicin 20% waa macquul inaad kacdo socoto 20% laakiin weli terabi kala fisiotherabi kalaan kuu diraynaa dhakhtar kalaa laguu dirayaa halkaa kalaa laguu dirayaa halkaasaa laguu dirayaa weli waanu ku jirnaa weli dhakhtarkii kamaad bixin laakiin maadaama aad shalayna weydiisay aan go'aansanay inaan turjumaan kuugu yeedhno kuu sheegno xaaladaada caafimaad maadaama hadda dhiiggaaguna balashirkaagu degan yahay aad maskaxdaaduna juusta tahay wax kastana laguu sheegi karaa wax faamilana markaa meesha kuma lihi wadankana aan faamil kuu joogin thank you aada u mahadsan tahay cabdiqaadirow waxay ahayd maalintii labaad ee nolosha igu adkayd maalintii koowaad ee nolosha igu adkayd waxayd markii ilmahayga la igu hordilay maalintii labaad ee nolosha igu adkayd waxayd maalintan lugahayga waaye ilaahu gargaar yaa rabbi aan aaminay ee aan qaayibay inaan dib u socon doonin laba xanuun oo midba midka kale ka daran yahay cabdiqaadiroo halkii baan joogay ilmada way iska socotaa xad ma laha midaan anigu xakamayn karayo midaan celin karayo iyo midaan keenayo toona maaha way ila hadlaan way ii sheekeeyaan wax yar bay ii keenaan oo wax yar bay ii keenaan gaaladu inay la ciyaaraan bay isku dayaan inay iga qosliyaan bay isku dayaan laakiin waxaasoo dhan ma soconayso bil dambaan dhakhtarkii ku jiray
baaritaanaan subax kasta baaritaan bay ii geeyaan, subax kasta baaritaan bay ii diraan, subax kasta raajday saaraan, subax kasta iskaan bay soo marayaan. Maalintii dambe waxaa laygu yiri Cabdiqaadirow gurigaagii baa lagu geynayaa, shaqaalaa lagu qabanayaa, waxa weeyaan dowladdaa ku haysa, dowladdaana ku hayn doonta, xaqaagiina waa lagu siinayaa, waa lagu saarayaa, gurigaagii baa lagu geynayaa. Haya. Gaadhi baa lay keenay winjarkii baa laygu kaxeeyey, gurigaygii baa lay geeyey, sariir yar baa lay soo iibiyey, thank you Haya. sariir yar baa lay soo iibiyey, Allahu mustacaane, shaqaalana waa lay keenay gurigii. Haya. Marka waran adoo shalay soconay qof markuu ku dhasho iyo marka dhibaato masiibo ku dhaco kala duwanta ilaahay nooma keeno ku saca. waxay noqotay Cabdiqaadir inaan aamino oo qaybo inaan noloshan ku jiri doono. Xaafadeedii baan la hadlay, waxaan u sheegay halkaan joogo, waxaan u sheegay dhibaatada igu dhacday, waxaan u sheegay inaan halkaas aan sidaa ahay. Halkii markaan joogo oon muddo meeshii joogay oy gabadhii shaqaalahayd ii shaqayso oo cuntada iyadu ii soo kariso oo wax kasta iyadu ii qabato, iyadu ii maydho, iyadu timaha ii feedhayso, iyo dad badan oo baahida gaarkaa qaba inala joogo dareemi karaya kulley iyaga aad u dareemaya noloshaas. Wax kasta iyadoo ay ii qabanayso Cabdiqaadir oo ay gaadhigii markaa shilka aan ku galay marii waxaan dhaawacan ii geystay isagaa iga khaldanaa, xaqaygii ayay dowladdu iiga soo qaatay. Alxamdulilah. Haya. Xaqaygii markii layga soo qaaday oo looyarkaygii xaqaygii ii soo dhiciyey, maxaad ku samaynaysaa buu igu yiri. Markaa waxaan go'aansaday Cabdiqaadir oo inaan businessna samaysto, shaqaale u dhiibto, gurina aan ka iibsado. Haya. Ilaa waa lacag oo way lumaysaa. Guri baan iibsaday, business baan furtay, shaqaalaan u dhiibtay. Xoogaa waxaa noqday markaa qof ka mashquushay murugadii maalin kasta oo ku mashquushay businesska, halkaasu ku habboon yahay, waxaasaa la keeno, kaala keeno, shaqaalaha hala bedelo, guriga dhexdiisa ka hagaysa. Waxay ii noqotay maaweelin. Haya. Cabdiqaadir shaqaalihii halkii buu iila joogay, gaadhi aan ahayn baan iibsaday oo gaadhi markaan kabadhka wax kala soo baxayo kale sidii wax kor ii qaadayo kale, qof taagan iga dhigayo kale aan soo qaadan karayo, anigu cuntadeeda karsan karayo, guriga ku dhex mari karayo, qofaa i riixayo iima iibin kaa dowladdu, laakiin anaa iibsaday, lacag badan ku iibsaday oon iminka xoogaa niyad ahaan aan dhisanahay oo qof iyadu ismaamulayso oo shaqaalihii gurigan iga hagaajiya waxaan yar ii qabta mooyaane inta badan anigu aan hadda ismaamulayo. maxaa soo socda haddaba way calool xanuun baa soo socda maaya ku saca. Dhakhtarka markaa bishiiba hal mar baan tagaa, physiotherapy baa laygu soo sameeyaa oo laysoo sameeyaa. Cabdiqaadirow markaan 20 sano noloshii ku jiray, 20 sano oon 40 sano jiro ayaa dhakhtarkii ii sameynayay meesha waxa ka shaqeeya inaan Soomaaliya isna dhakhtar ah. acuudu billaahi min ashaytaan faarax luga baasta maqashay yaa masiibo maqashay waryaa haddaaba faarax maqla aniga laftirkaygu adda adeygii baaska acuuduka billaahi inankii imisa ka naxay faarax markay maqleen qosolka taabta inta ka naxday wallaahi waa naxdin wey cabsi ku soco. inankii Cabdiqaadir oo inanku uu ii naxariistaa, inanku iisoo walaalo, aniga walaalka ah, anaa ku caawinaya, walaal anaa garabkaaga taagan, walaal hebla, walaal. Inankii waxaan ka dareemay naxariis aanan ka dareemin faamilkayga markaan u sheegay iyo markii hore toona iyo dadka Soomaaliyeed markaa magaalada igula noolaa toona aanan ka dareemin ayaan ka dareemay. Dhawaansho badan oo iisoo dhawaanayaan ka dareemay, hadal badan oo dabacsan baan ka dareemay. Tankiyo Faadimo walaalo, wax badan baan ka dareemay.
Hey. cabdiqaadir Farxad wanaagsanaan doonaa baad ila tahay. Hey. inankii waxaan arkay naftu meesha u roon iyada raacday anoo xaggiisa laysii jiidanayo in yar xaggiisa laysii jiidanayo isaga hortii rag bacol baanu ahay Hey. cabdiqaadir inankii markaan hadalkii u dabciyey isaguna uu markasta ii dabcinayo ii soo dhawaanayo walaalo anaa walaalkaa anaa garabkaaga taagan haddaad adigu bilaa caga tahay cagahaygaa kuu caga ah anigaa wax kasta kuu qabanaya anaa wax kasta kuu samaynaya anigaa haddii la samayn karayo lugaha inaan kuu bedelo waan kuu bedeli lahaa inaa yaro qurux badan baa tahay inaa yaro waxaa tahay u qalanta nolol qurux badan inaa yaro farxad u qalantaa tahay inaa yaro sidanaa tahayda uu leeyahay waxaan arkay inankii baanoo qalbigii wada siiyey hadda intan weli walaaltinimaa la marayaa weli jacayl lama gaadhin adkaatay haye cabdiqaadir waxa dhacday inankii maalintii dambe markuu arkay qalbigayga inuu hantiyey ayuu wiil ka waran haddaan ku guursado anuu garabkaaga noqdo aan agtaada kasoo tooso wax kastaad u baahan tahay kuu qabto haddii ilaahay ilmo ku siinayo ilaa lugahaagii unbaad wada wax waad dhali karaysaa ilaahay ilmo ku siiyana ilmo yaro hadha weesada kuu qaado kaxeeyaan ku aan kaaga soo tuuro cabdiqaadirow haye gooraan idhi anuu garan maayo aduu ma garanaysa wallahi ma garanayno sabuuradda adkaatay un ka dhiga sheekadu markii hore waxay ahayd xaaladii soo jeexay laakiin hadda waa tii ugu daranayd baa soo socota kulli faarax la arag dhibaato la arag ku soco cabdiqaadirow inankii haye baan ku idhi xaafadeedii buu la hadlay gabadhan kasoo doonay inaad gabadha isiisaan lacag suuryaabuu u diray waa laysuu siiyey uu imehersaday cabdiqaadir aroos iyo dig iyo dab ma jirto dee qof socon karaysa ma ihiye gurigeygii ila gurigeygu waa hantiye hurdo unbuu dalbay hurdadii baa lasoo dhigay sariir yar markaa aniga oo khaasaan leeyahay oo markaan sariirtaas lay jiifiyo laysoo kiciyo dhinaca xaggaas biryar saa loogu wareejiyo iisoo kacda oo loogu talagalay dadka baahida gaarkaa qaba hareerahana ka xidhanta ayaan leeyahay oo khaasa